بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وحليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربنا وكسين دونا وادنا رالين نقن دونتا. الله أكبر. آيادني وحي كجرتا سورة الضحى وحينا ودتا لبا بشارو mid waa marka koobaad inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siin doono waa marka labaad in ilaahay waxa uu ku siiyay aad raali ka noqon doontid. allahu akbar. waxaad ogtihiin walaalayaal qofka marka wax la siiyo waxaa dhici karta waxaas la siiyey inuu saluugo oo uusan raali ka noqonin ama uu yaro mataqaanaa yaraysto uu yidhaahda waxaan anigu uma qalme waxaan maxaa lee siiyey. laakiin halkan u fiirso, ilaahay wuxuu leeyahay rabbigaa wuu ku siin doonaa waadna raali noqon doontaa. inkastoo aayadahani ay sabanuzuul leeyihiin sabab ay ku soo degeen oo waxaad ogtihiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu waxyiga ka soo daahay isla markaana gaaladii ay yidhaahdeen maxamed shaydaankii wax u keeni jiray ayaa nacay oo ka tegey. markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla jalaaluhu wuxuu ku dhaaranayaa barqada ayuu ku dhaaranayaa waadduxaa walleyli idaa sajaa. ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa barqada iyo habeenka marka uu madoobaado uu xasilo in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna ugu dhaaranayaa inuu adkeeyo maa waddacaka rabbuka wamaa qala. rabbigaa kaama tegin, kumana nicin, kumana caroonin. allahu akbar. marka ay dhibaato ku qabsato, marka aad cidlootid, marka aad walwashid, marka aad wabahaatid, ogow inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala leedahay. ilaahay doonaya inuu dhibaatada kaa qaado. saas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xasuusinayaa adduunkan waxbaha isku dhibin. walaalaakhiratu khayrun laka min aluulaa. aakhiro ayaa kaaga fiican kaagana khayr badan midaan adduunka ee laga tegayo. haddii taajir aad ahayd, haddii aad lacag lahayd, haddii aad mataqaanaa shid ahayd oodan waxba haysanin, haddii aad busaarad ahayd, mar walba adduunkan waa laga tegayaa waxaana loo socdaa aakhiro. saas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa. ilaahay wuu ku siin doonaa waadna raalli noqon doontaa. walaalayaal waxaa noo fiican ee noo wanaagsan annagu ma naqaan, allah subxaanahu wa tacaala unbaa yaqaana. waxaa dhici karta waxaad adigu khayr u haysatid inuu shar kuu noqdo. waxaa dhici karta waxaad adigu wanaag u haysatid, waxaad shar u haysatid inuu khayr kuu noqdo. sababtu maxay tahay? wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun. alle ayaa og, idinkuse ma ogidiin. waxaa kaloo muhiima walaalayaal inaan ogaano adduunka dhibaato kastoo ku soo marta laguma waaro, waa laga baxaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaaro kale wuxuu leeyahay inna maca alcusri yusraa. dhibaatooyinka waxaa looga baxana walaalayaal waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo soo laabto. ilaahay wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofka ilaahay ka cabsada ilaahay albaab ayuu furayaa. wayarzuquhu min xaysu laa yaxtasib. ilaahay wuxuu wax ka siinayaa meel uusan ka filanaynin. allahu akbar. walaalayaal mar walba aanu xasuusanno walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa. sidoo kale walaalayaal waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado waxaa ka mid a ducada. ducadu walaalayaal waa hub aad iyo aad u weyn. saas darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum. ibarya aan idiin ajiibe. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. ilaahay wuxuu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii. addoommadayda markay kaa weydiiyaan maxamedow, ilaahay muu dhihin qul dheh, laakiin wuxuu yidhaahday fa inii qariib, addoommadayda waan u dhowahay. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ma jiraa qof mataqaanaa wax weydiisanayo oo aan ajiibaa. haddii aad xanuunsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad weydiiso. haddii dhibaato kale ku haysato ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena ha dhaafo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.